بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada ardaydeena qiimaha badan leh koorsadeeni WordPress complete course oo aan ku baranaynay WordPress version 6.5. insha Allah taala shirkana maanta waxaan ku baran doonaa wax lagu magacaabo media ayaan ku baran doonaa sababtoo ah website-ka waxyaabaha macnaha u sameynaya waxay tahay inaad cod soo geliso sidoo kale inaad audio soo geliso inaad qoraal maqaal soo geliso waxyaabahaasi marka la isku keenay ayaa marka website-ka macna oo ku sameynaya marka sida la jiligeed maanta waxaan baran doonaa media si loo soo geliyo website-kaagi ayaan ku baran doonaa insha Allah taala. haddaba anagoo joogna marka back endiga ama qaybta dashboardka halkan waxaad u jeedaa meel ay ku qoran tahay media halkan waxaad dhigi kartaa add new media file sidoo kale halkan waxaad dhigi kartaa library kadib waxaan leenahay marka library ayaan ku dhufan doonaa library markaan ku dhufano kadib halkan waxaad u jeedaa laba image ayaa ku jira hadda halkan aan soo gelinay sidoo kale waxaad dhigi kartaa sidoo kale qaybtani add new media file aad dhihi kartaa oo qaybtaani ah kadibna drop file to upload ayaa lagu leeyahay drag and drop ayaa samayn kartaa waa soo dooran kartaa marka haddaba marka si aan u sameyno midaasi marka qaybtaani waxaan leeyahay choose files ay ku qoran tahay aan dooran doonaa waxaan leeyahay halkani show all files ayaan sii dooran doonaa mar kale markaan doorano qaybtaani kadib waxaan dooran doonaa meesha ay sawirada ay yaalin ayaan dooran doonaa marka kadib meelahan waxyaabahan ayaan marka waxyaaba aan iskaga soo dooran doonaa wax sidaas hadda macno sameynaya maahan balse sidoo kale marka dhowr hab ayaan iska dooran doonaa marka hal mar aan wada dooran doonaa si aan rabin ay noqdeen waan ku laaban doonaa mar kale show ayaan leenahay kadibna waxaan leeyahay marka waxaan dooran doonaa sawiradaani ayaan dooran doonaa okay midkaan ii door midkaan ii door midkaan ii door kadib midkaan ii door already waan haystaa midkaasi inta markaan sameeyo kadib open ayaan ku dhihi doonaa marka oo waa u jeediin open ayaan ku dhahnay marka kadib waxaad u jeedaa dhowr sawir ayaan soo gashanay marka sawiradani ayaa marka waxaad soo gelin kartaa marka qaybtani mediadan qaybtani waxaad soo gelin kartaa audio ayaa soo gelin kartaa video ayaa soo gelin kartaa sawir ayaa soo gelin kartaa pdf ayaa soo gelin kartaa marka waan arki doonaa marka dhamaantooda hadda waxaan soo gelinay marka sawir waxaan soo gelin doonaa markaan waxaan leenahay select file waxaan soo gelin doonaa marka video ayaan soo gelin doonaa video si aan u soo geliyo marka computerkayga ayaan tagi doonaa kadibna meelahani ayaan marka aan ka raadin doonaa wax anigu aan rabo marka kadibna okay aan leeyahay okay markaan dhaho kadib waxaan soo doortay marka video ayaan soo doortay oo marka 2 minutes ka kooban oo marka koorsadani Canva master class course lagu magacaabo introduction-keeda ah ayaan soo doortay tusaale haddii aan play aan dhaho fiiri codka ayaan ka xiri doonaa kadib waxaan leeyahay play ayaan leeyahay koorsadani waxaad ku sameyn doontaa dhammaan projectyadani kuu muuqda oo halkani aad u jeedo iyo kuwo kale ka dambeeya oo scrollka marka aad jiido aad arki karto ayaad ka baranaysaa oo marka insha Allah taala waa course master class course oo Canva ah graphic design haddii aad tahay web designer aad tahayna sidoo kale kama maarantid graphic design-ka inaad barato marka koorsadani course dhammaystiran weeyaan marka oo 60 iyo dhowr cashar ka kooban 11 saacadood ka badan ay marka casharadeedu ay gaarayaan okay marka inta markaan sameyno kadib waxaan leenahay qaybtani cancel ayaan leeyahay
sidoo kale waxaan soo gashan karnaa audio ayaan soo gelin karnaa inkastoo hadda audio diyaara halkan iigu jirin okay ayaad leedahay waa soo dooran kadibna audioga sidaas ayaad usoo gelin kartaa intaa marka aad samayso kadib marka haddii aan ku laabano marka qaybta iyo bostiska all bostis aan dhahno kadib qaybtani aan ku dhufano sidoo kale waxyaabahani oo dhan marka waad soo gashan kartaa video haddii aad rabto inaad soo geliso halkan ayaad leedahay okay markaan dhahno kadib qaybtani balasta ayaad ku dhufan doontaa kadibna qaybtani galeriga ayaad dooran doontaa kadibna okay haddii aan dhahno okay aan sii dhahno marka meeshan aynu geynaya sidaas ayaad marka aad usoo dooran kartaa balse waan ka laaban doonaa oo qaybtani hadda uma baahnin delete ayaan iska leenahay sidoo kale qaybta page-ka adigu aad rabto ayaad soo gashan kartaa videoyadaasi marka videoyadaasi waxaad soo gelin kartaa page-ka adigu aad rabto qaybtani marka dashboardka nigayaan leenahay leaf ayaan leeyahay marka sidaasi ayaad u isticmaali kartaa media asiguna muhiimadaas ayuu leeyahay haddii aan ku laabano oo waa kanamadani weyn marka media ayaanu dhex joognaa balse pages haddii aan dhahnana sidoo kale pageka waa soo gelin kartaa asiga xitaa oo edit aan dhahno edit ayaan leenahay edit markaan dhahno kadib asiguna waxaan joognaa marka pagekii ayaanu dhex joognaa halkan marka wixii adigu aad rabto ayaad ka yeelan kartaa sidoo kale wixii adigu aad rabto ayaad ka yeelan kartaa haddii aan dhahno marka okay aan dhahno kadibna aan dhahno plus aan dhahno kadib waxaad u jeedaa marka waxyaabahani oo fara badan ayaa kuu soo muuqanaya marka waxyaabahani faraha badan ayaa kuu soo muuqanaya oo aad u jeedaa video haddii aad dhahdo marka waa u jeedaa video aan leenahay kadib waxaad leedahay marka media library ayaad leedahay marka media library ayaan leenahay sidoo kale canva ayaanu leenahay kadib koorsadii ayaanu dooranay kadib codkeedii ayaanu iska xirnay oo waa midani way socotaa marka waa u jeedaa videogaagii waa kuugu jiraa marka sidaasi ayaad usoo gelin kartaa video sidoo kale si lamid ah waad soo gelin kartaa sawirkana waad soo gelin kartaa asiguna sidoo kale balse waxaan leeyahay hadda waan ka saari doonaa sababtoo ah culeys ayuu ka keenay website-ka delete ayaan leeyahay marka update ayaan leeyahay pagekani asiguna sidoo kale marka sidaasi ayaad u isticmaali kartaa media library-ga wordpresska asiguna sidoo kale waxaan rajaynaya marka inaan isla fahnay casharkeena maantay waxaan idin leeyahay soo dhowaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu